19 May aynu ka soo gudubnay kadib duufaantii sagar ee ka daaday xeebaha gobolka Awdal ee waxyeelada baan ka soo gaadhay dadkii ku dhaqnaa goobahaasi ayaa ururka samafalka Anfac Foundation waxa uu dhexda u xidhay sidii uu deeq kala duwan u gaarsiin lahaa dadkaasi iyagoo haddaba ku guda jira gudashada waajibaadkooda shaqo waxa ay gaadheen deegaanka gargaar ee degmada Loghaye gobolka Awdal iyagoo halkaasi ka dhagax dhigay ceelbiyood baahi aadaha ay u qabeen dadka ku dhaqan deegaanka gargaar ee degmada Loghaye gobolka Awdal kuwaas oo ahaa kuwa horay u cabbi jiray biyo wasakh oo nu kala socnayn dadka dunyada iyo xoolaha ku dhaqan deegaankaasi. Bismillahir Rahmaanir Rahiim waxaan hadda dhagax dhigaynaa sida idin muuqata ceelkii aanu ka qodanay gargaara yaanu hadda dhagax dhigaynaa anaga iyo injineerka iyo gudoomiyihii degmadu. wafti ballaadhan oo horkacaysa gudoomiyaha guud ee ururka samafalka Anfac Foundation Hinda Caddo Shaare isla markaana uu ku weheliyo isku duwaha wasaaradda macdanta iyo biyaha gobolka Awdal ayaa gaaray deegaanka gargaara halkaas oo ay goobjoog ahaayeen duqa degmada Loghaye iyo waxgaradka iyo cuqaasha ka soo jeeda deegaanka gargaara ee gobolka Awdal ayaa hadal kala duwan oo halkaas laga soo jeediyay ugu horeynba waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka samafalka Anfac Foundation Hinda Caddo Shaare oo faafahin dheeraada ka bixisay cilbiyoodka ay ka hirgelinayaan iyo faa'iidada uu yeelan doono dadka ku dhaqan deegaanka gargaara. Bismillahir Rahmaanir Rahiim anigoo ku hadlaya afka magaca ururka samafalka Anfac Foundation waxaan maanta joognaa gargaara xaruntii masiibada ay ka dhacday ee weynadayaan joognaa maanta waxaan u nimidnay sababta ceel inaanu ka qodno awgeed ceelkaasi oo muddo ka hor imkana lagu wareejiyay inta badan uu naga daahay laakiin alxamdulillah maanta ayuu Ilaahay noo suura galiyay inaan dhagax dhigii aan madarataane aan maanta dhagax dhigno waxaan nala jooga halkan gudoomiyihii degmada Cabdilaahi waxa kale oo nala socday wasaaradda macdanta iyo biyaha injineer Awliyo waxaan nala joogo kale odayaasha cuqaashi waxaan leenahay dhamaantood Ilaahay hawsha aadin wadno ha noo fududeeyo hana nagu asturo xilka aanu qaadnay waxaan uga mahad celinaynaa walaalaha iyaga muxsiniinta ah ee lacagta soo ururiyay ee hormoodka ka tahay walaashay Farduus Ciga ee ku nool wadanka UK waxaan leenahay walaalo jasaakallahu khayr jasaa'ilkii aad lacagtiisa nagu wareejiseen maanta ayaan u joognaa dhagax dhigiisii insha Allah ta'ala maalinta la dhameystirana iyadoo biyihii laga cabayo waad soo tusoonaa insha Allah ta'ala isku duwaha wasaaradda macdanta iyo biyaha gobolka Awdal iyo qaar ka tirsan dadka deegaanka gargaara oo dhamaantood ka mahad celiyay ayaa waxay mahadnaq ballaadhan u jeediyeen ururka samafalka Anfac Foundation iyagoo la sheegay inuu ceelka noqonayo kii ugu horeeyay laga hirgeliyo tan iyo markii duufaantii sagar ay ku dhufatay deegaanka gargaara oo ahaa goobtii ugu badnayd ee waxyeeladu ka soo gaadhay duufaantaasi. waxa maanta farxad iyo sharaf noo ah inaan halka dhagax dhigno ceel cusub oo loo qodi doono deegaankan gargaara oo ay noogu deeqeen oo ama ay hormood ka yihiin ururka wadaniga ee Anfac runtii ururka wadaniga ee Anfac horena way uga qayb qaateen duufaankii iyo markii dhibta ay cusbayd imikana waxay noo sidaan ceelka maanta halkan muxuu ahaa la bilaabi doono oo waxtar weyn u noqon doona deegaankan aad iyo aad baan uga cudur daaranayaa in aan soo haleeli waayay oo ay diyaar ahaayeen hablahaasi si aan u dedejino hawsha oo aan u bilowno diyaar buu ahaa gudoomiyaha degmadu iyo community-guba diyaar bay ahaayeen inaan hadda ka hor bilowno anigaas ka mashquulsanaa waan ka cudur daaranayaa waan ka raali gelinayaa ururka wadaniga ee Anfac in hawshan muhiimka ah aan ka daaho waxaan leeyahay waxaad noo keenteen waa wax anfac leh anfacaas Ilaahay anfac nooga dhigi deegaankan iyo dadkan ballaaran ee halkan ku noolina insha Allah waxay heli doonaan biyo nadiif ah oo u dhow ay heli doonaan insha Allah kulay gudoomiyaha deegaanka Loghaye Cabdilaahi oo runtii biyaha aad noogala shaqeeya halkan mashruuc kale oo ka socda oo magaalada biyaha lagu gaarsiinayo guud ahaan degmadana Cabdilaahi biyaha hormood buu ka yahay gudoomiyaad baan kugu mahadnaqaynaa in aad hiiliyo hooba nala ag joogto haday dhibaato la xalinaya tahay iyo hadii ceel cusub oo la bilaabay ay tahay iyo hadii
biyaha degmada sidii loo joogtayn lahaa aad nagala qayb qaadato deegaankana waxaan leeyahay ceelkan marka la idiin qodo wax waa la samayn karaa laakiinse waxaas inuu sii raagaa way adag tahay halkan iminka maanta aan joogno waa maalintii ugu horeysay ee ceel laga qodo ma aha gargaaro uma jeedo laakiin qarkan waxa naga xigo naga toosan dad aad u tabaalaysan oo 8 sano ka hor soo degay meesha way ku dheerayd xaqiiqadii marka ay ka cabayaan biyaha aad bay ugu dheerayd boqolka aqal waxa magac ma guuraan u ah ceelka maanta loo qoday geerka sababtoo waxay helayaan biyo dhow bay helayaan biyo macaan bay helayaan ceelceedii ay sii marayeen bay ka raysanayaan idinkana waxaan rajaynaynaa in ilaahay caaw miisaanka xasanaadka idinku daro urur jiran ilaahay uu idinka dhigo dadkan loo qoday biyahana waxaan leeyahay sida injineerku soo sheegay biyihii waa la idin qodayaa maanta dhagax la dhigay idinkuna manaafacaadkooga ilaashada nooga dhigo ku dadka deeqdaba wax loogu talagalay laga helo Allah nooga dhigo kuwa si loo talay ee soo waxtiri ee deeqda ilaahay xasanaadka si Allah ka dhigo kuwa kuwii qodayay ku guuleysteen oo gargaar iyo garab Allah ka siiyay dadkuna ka faacada Allah ka dhigo insha Allah ilaahay idinkiisa kullu wax oo lagu war Allah nooga dhigo gabagabadii hadalka waxa soo afmeeray duqa degmada Lughaya oo uga mahad celiyay ururka samafalka Anfac Foundation cilbiyoodkan ay ka hirgelinayaan deegaankani gargaara sidoo kale waxauna ka marxaati kacay inay deeqdan yahayntii ugu horeysay soo gaarsiiyeen balse tan iyo maalintii ay ku dhufatay duufaantii Sagar ay ahaayeen kuwa hiiliyo hoobalaag jooga dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay runtii deeqdan inaad maanta noo wadaan waa deeq aad muhiim ah waliba markaan u eegno halka laga sameeyo iyo dadka degan halka ay naga dambaysa biyuhu aad arkaysan intay u jiraan ciidada dhacaysana waan wada qiyaasi karnaa inteena joogtay runtii waxay tani maanta u noqonaysaa maxay inay hawl weyn oo ka fududaatay dhinacii biyihii oo guryaha inay guryahooda u dhawaato ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu biyo macaan halkaas naga siiyo dadka soo bixiyay maxay inay deeqdanina waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadkaadi ku daro waxa khayrka ilaahay ka rajaynaysan Allah idin fududeeyo Anfac Foundation-na waxa weeyaan ururadii nagala qayb qaatay duufaantii oo maanta nooguma horeyso runtii maantana waa socdaal kale oo arrin muhiim ah oo noogu keenay si kastaba ahaatee ceelkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee laga hirgeliyo deegaanka gargaara tan iyo wixii ka dambeeyay 19 May markii ay ku dhufatay duufaantii Sagar Saykarwan deegaanka gargaare ee degmada Lughaya ee gobolkani Awdal wajaama Xuseen Jaamacaduday iyo Cadfatax Aydaax macalinka deegaanka gargaare degmada Lughaya ee gobolka Awdal ku dadka deeqdaba wax loogu talagalay laga helo Allah nooga dhigo kuwa si loo talay ee soo waxtiri ee deeqda ilaahay xasanaadka si Allah ka dhigo kuwa kuwii qodayay ku guuleysteen oo gargaar iyo garab Allah ka siiyay dadkuna ka faacada Allah ka dhigo insha Allah ilaahay idinkiisa kullu wax oo lagu war Allah nooga dhigo Allahumma salli ala Muhammad Faataha